kulanti waxaana wanaagsan dhammaan baad ku xiran janaalka kulmiye technology course waa coursadii C++ casharku waa casharkii 36 waxaan qaadanaynaa maanta qaabka loo raadiyo nambarka ugu weyn ee ku dhex jiro array maanta waxaan rabaa inaan waxyaabo badan aan hore usoo baranay inaan maanta aan kasoo saarno hal application oo kaasoo faa'iido leh waxaan rabaa inaan maanta isticmaalo function waxaa kaloo rabaa inaan ku daro global variable waxaa kaloo rabaa inaan ku daro if kadibna aan isku geyno aan kasoo saarno wax faa'iido leh horta scope hore ayaan usoo qaadanay cashirkaas balse waxaan rabaa wax yar inaan idin xasuusiyo lacala tusaale haddii aan variable aan ku qabsado mainka gudihiisa tusaale aan dhaho a equal 0 kadibna aan dhaho a soo bandhig sidaa ogtiin calaan wata wax error ma soo baxayo bal aan tusiyo si fudud maxaan qalday a equal 0 calaamadan aan ka tegay okay ogaa taabinka inaan qora umalinayo balse aan ka tegay okay dhimala 0 maxaa soo baxay waa 0 balse haddii aan function kala sameeyo eedan keliya waxay ka jirtaa scope-kan scope maxaa la waa labadaas calaamadood keliya waxaa laga heli karaa scope-kan waa labadaas calaamadood haddii aan function kale aan sameeyo kaasoo ku yaalo banaanka functionkan iskali bio kale keliya waxa ay rabnaa inaan ku fahanno kadibna aan dhaho soo bandhig maxaa la soo bandhigayaa a kadibna aan dhaho okay calaamad kale aan ku daro kadibna aan dhaho a functionkan aan prototype aan u sameyn maxaa yeelay functionkan mainka hoosaa lagu qoray si computerku ogaado waa inaan u sameynaa prototype okay haddii aan run dhaho hadda variablekan waxaana leeyahay variablekan ma jiro sida haddii aan tusiyo errorka waa kaasa a was not declared in this scope a scope-kan laguma qabsan amba laguma qeexin sidaad rabto u qaado haddii aad rabto inaad errorada aad soo baxsatani waxaad tegaysaa views kadibna waxaad ku dhufsanaysaa logs ani hadda waa iska qari haddii aad rabto waxaad tegaysaa views kadibna waxaad leedahay logs kadibna waxaa kuu soo baxaya errorka balse aniga meesha ayaa igu yar waxaa rabaa inaad si fiican u aragtiin balse haddii cilad ku qabsato meeshaas waa ka fiiri kartaa okay haddii aan balse hadda waa isla fahanne eedan keliya waxay ka jirtaa keliya scope-kan haddii aan rabo variable inaan ku isticmaalo mainkan dhexdiisa functionkan haddana aan ku isticmaalo functionkan xagee geyna waxaa geynaysaa qaybta kore waxaan geynayaa qaybta kore waxaan leeyahay kadib haddii aan dhaho hadda x oo kale kadibna aan dhaho 3 horena uu soo sharxay variablekan la dhahayo x waxaa isticmaali karo functionkan oo la dhahayo main iyo waxaa kaloo isticmaali karo functionkan oo la dhahayo asigana b bal haddii aan hadda aan duplicate aan dhaho x of 1 aan dhaho x kana aan asigana koobiyeeyo kadibna aan dhaho x aan ka dibran gareeyo labadaba wax error ma soo saarayaan maxaa yeelay okay hadda wuxuu dhawayaa error ayuu soo saaraya maxaa yeelay okay kii hadayaan ilaad meesha ka bixin maxaa yeelay eedan waxay ka jirtaa keliya mainkan balse kama jirta inta haddii aan comment iska saaro amba iska tirtiro kadibna aan dhaho run wax ciladan ugu qabsan maayo saa ujeedin wax cilada nagulama qabsan maxaa yeelay xtan waxay tahay global variable waxaa la global variable maxaa yeelay functionkan gudihiisa laguma qabsan haddii aanan functionka gudihiisa aan lagu qabsan variable waxaa la dhahaa global variable haddii oo gudaha functionkan lagu qabsado waxaa la dhahaa local variable sida kan oo kale maxaa yeelay wuxuu keliya ka jiraa meeshan okay bal hadda aan tutorialkeena galo maxaa yeelay inaa iga dhacdiin maro waxaa rabaa inaan isla socono saa darteed ayaan waxaan u aaday xogaa sharaxaad yar waxaa rabaa maanta inaan array aan qabsado hadda waxaan rajeynayaa inaad ila socotiin hadda oo global variable ah arraydaas waxaan u bixinaa magaca arta u bixi kartaa hadda waxaan iska doortay
buundooyin waxaa iska doortay buundooyin si aan ugu sheego computerka waxaan inay arrayin waxaad isticmaalaysaa labadaas calaamad kadibna waxaa leedahay semicolon waxaa rabaa asigana hal variable oo aan rabo inaan dhaho xajmiga kadibna aan dhaho xajmiga arraydan waxaa rabaa 4 haddii aan rabo 5 waa dhigi karaa 6 8 wax laali waxaa rabaa dhigi karaa balse waxaan iska doortay 4 maxaa yeelay xoogaa iyadaa fudud kadibna aan ku baaso xajmiga inta waxaa lagu bedelayaa 4 computerka asiga ayaa bedelaya wuxuu ku bedelayaa 4 waa adigoo sidaas oo kale dhahday balse C++ xeerkan waa sax laakiin C++ ma ogol xeerkan array haddii aad seskeeda sheegayso computerka wuxuu ku leeyahay seskan kan waa variable sidiisa waxaa loogu talagalay inuu isbedelo C++ ma ogolaan doonto waxaas in variable oo isbedelayo in lagu baaso array oonan isbedelin arrayda hal maraa la sheegaa kadibna gadaal cabirkeeda amba intay qaadayso dib lagama bedeli karo haddii aan randho qalad ayaa soo baxayo si aa ujeedin waxaa soo baxay qalad si macnaha haddii aan hadda 4 keliya aan ku baaso wax error ma soo baxayo sababtuna waxay tahay waa fixed variable-kan numberkaas qiimahaas ma isbedela balse variable computerku wuxuu ka cabsanayaa inuu variable isbedelo si computerka aan ugu sheegno variable-ka inuu gadaaldan iska bedelinin waxaan u baahanahay keyword kale kaasoo dhahayo const kaasoo u sheegayo in variable-kan oo hal mar keliya 4 lagu shubay kadibna aan lagu shubaynin wax kale variable-kan waa fixed ilaa programka uu ka dhamaado sidiisa ayuu ahaana 4 ayuu joogaya waa la isku halay karaa haddii aan randho compilerku uu aaminayaa okay balan ay la gashay rajaynaa balanta ka bixin uu leeyahay compilerku uu aaminay sida ujeedin uu fasaxay okay khalaas waa sharaxaad yar kadib waxaan rabaa hal function oo aan rabo qofka inaan su'aal ku weydiiyo uguna soo qaado xogtii aan ku shubi lahaay arraydan okay waxaa leeyahay float waxaa leeyahay soo geli waxaa rabtaa iska dooran kartaa geli waxaa laali waxaa rabtaa dooran kartaa kadibna aan dhaho semicolon functionkan waxaa rabaa inaan qaybta hoose aan ku qoro maxaa yeelay haddii aan rabo inta waa ku qori karaa balse waxaan iskaga qoranaya qaybta hoose soo geli halahaas waxay ahayd prototype arraydan sidaa ujeedin hadda muhiimadda hadda ay dhibaatadii dheereed waxaan usoo marayna waxay ahayd waa meeshaan sidaa ujeedin waxaa rabaa arraydan in ku dhex isticmaalo functionkan ku dhex isticmaali karaa haa maxaa yeelay waa global variable maxaa yeelay functionkan gudihiisa laguma dhex sameynin waxaa lagu sameeyay global variable sidaa darteed waxaa isticmaali karo function allaale iyo function kasta oo gadaal ka imaado okay qofka waxaan su'aal u soo bandhigayaa si aan u hayo qofkii isticmaala computerka waxaan leenahay fadlan geli okay waxaan leenahay inaan gelino buundada kadibna waxaan leeyahay okay عندنا كده سيو معناه وحن array hal qiimo ma ahan si aan arraydan ila cabirkeeda aan mudafar badan aan u soo celino waan isticmaali karnaa inaan 3 sadar aan qorno kadibna aan arrayda aan buuxino balse waxaa jira qaab kale fudud anagoo isticmaalino loobiska haddii aad rabto while loop aad isticmaali kartaa haddii aad rabto for loop aad isticmaali kartaa balse badanaa haddii aad array la falgelayso waxaa la isticmaalaa for loop kadib waxaa la inti equal 0 less than waxaana inuu socdo ilaa xajmiga maxaa yeelay arraydiina intay qaadan karto 4 intay ka yar tahay 4 waxaan rabaa inaan variable-kan ay la dhahayo badiso aan furo kadibna kuwan korigay okay kuwan korigay si fiican ayuu qurxi okay kadibna waxaan rabnaa inaan dhahno soo geli halaan waxay ahayd keliya soo bandhig kadibna aan dhaho soo geli maxaa la soo gelinayaa waxaan rabnaa inaan wixii aan soo gelino waxaan rabnaa inaan ku shubno buundooyin positionka ay marayso ay hadda waxay maraysaa position 0 hore ayaan for loopka midkiin badan ayaa marar badan aan ku ceelshay si fiican u sharxay balse hal mar kuwiga waa sharxi doonaa haddii aan dhameeyo kadib uu gelinayaa fadlan geli buundada si aan u qurxiyo userka si fiican buundada
سأنا قرحي وحلا I أو zero هدي عندهم بوندد إبراد هدي عندهم قلي واحد جرم سي معناها قف كمبيوتر كأواجنو I waxaa ugu darayaa hal kadibna waxa uu soo baxayo I oo 0 maraysa hal ku dar meeqa waaye waa hal fadlan geli buundada koobaad kadibna waxaa la leeyahay sadar cusub haddii aan rabno sadarkan cusub waa iska tiri karnaa si ay waxaynu noqdaan wax qurux badan labadaas calaamad ku dheji kadibna semicolon fashankeena si aan u wacno una baroobayno inuu fashankan aan ku guulaysano oo la shaqaynayo waxaan u baahannahay fashankan waxaan u baahan inaan wacno programkeena markastoo kacayno wuxuu ka bilowdaa mainka okay haddii aan rabno inaan fashan wacnan waxaan ka dhaawacaynaa mainka soo geli kadibna waxaa leedahay semicolon fashankan wax oo parameter uma baahno maxaa yeelay variablekan waa global variable haddii aan variablekan inta aan ku qabsanin waxaan u baahnana inaan parameter ahaan aan ugu baasno balse maanta sidaas ma sameyno waxaan sameynay global variable ayaan ka dhiganay meel kasta laga isticmaali karaa soo jeedin wuxuu dhahay fadlan geli buundada koowaad okay waxaa leeyahay oo kale 10 fadlan geli mid labaad 20 30 40 soo jeedin fashankan wuxuu noo qabtay wuxuu kasoo qaaday userka xog kadibna waxaa lagu xareeyay arraydan waxaan kaloo rabaa fashan kale kaasoo asagana la dhahayo soo bandhig soo bandhig keliya return typekiisa inuu wax soo celsho ma rabo keliya waxaa rabaa inuu wax soo bandhigo maanta waxaa fahmaysin awoodda uu functionka leeyahay markastoo aad project aad diyaarinaysidna koodkaaga waxaad isticmaalaysaa qaabkan oo kale adigoo isticmaalaysid functiono kawaasoo kuu qabanayo shaqo gooni ah functionkaas hadda soo geli wuxuu keliya xogta kusoo qaadaya kana waxaa rabnaa inaan keliya xogta kusoo bandhigno bandhig kadib functionkan aad browser u sameynay wuu imaan doonaa dhaanay functionkan iska xiro haddii aad rabto waxaad riixaysaa meeshaas si macnaha aan si fiican ugu aragno mainkana iska xiro si aad koodka hal mar aad u wada aragtiin okay functionkan aan qoro soo geli soo bandhig kadibna aan furo boodiga functionka kadib muxuu soo bandhigayaa arrayda waa wax fara badan saan u soo bandhigno waxaan u baahanahay inaan isticmaalo loobiska haddii aan rabno si out waa isticmaali karna balse waxay nagu noqonaysaa arraydan xabarkeeda haddii uu 3 inaan 3 mar si out daano kadibna positionka u bedelno balse oo iska fududeynana anaga waxaan isticmaalaynaa loobiska hal sadar ayaan waxaas oo dhan ku qabanaynaa I equal 0 I less than ilaa intee xajmiga meeqa waa 4 ay semicolon I plus okay kadib waxaa leeyahay soo bandhig waxaa la soo bandhigaa buundada waa buundada adhow kadibna andhow I plus 1 buundada koowaad oo kale waa kadibna andhow maxaa rabnaa inaan soo bandhigno waxaa rabnaa intay ku jiraan buundooyinka waxay ku jiraan arraydaas buundooyin positionkee okay wax yar aan korni u qaado amba kana hoos iska geeyo good positionka ay marayso kadibna andhow end line fashankan hadda waa sameynay balaa asigana aan wacno si aan ugu faa'iidaysano okay mainka ayaan furayaa kan ayaan jebinayaa hal mar aniga ayaa tusaayo okay mainka ayaan jabshay mainka ayaan furay kii kalena waa iska soo jabshay kan wuxuu soo gelinayaa arrayda wuxuu ku shubayaa xogtii laga soo qaaday userka waxaa rabnaa inaan soo bandhigno waxaan isticmaalnaa functionkaas oo noo qabanaya asigana shaqadii bal hadda aan functionkan baroobeynano asigana inuu shaqadii noo qabtay in kale waxaa lahay aan iska gelsho 20 10 30 40 saa ujeediin buundada koowaad waa 20 labaad waa 10 buundada saddexaad 30 40 okay functionkaas asigana wuxuu noo qabtay shaqadii aan ka rabnay balse maanta waxaan rabnaa inaan ku daro function kale kaasoo asigana noo qabanayo shaqo kale kaasoo raadinayo numberka ugu weyn arraydan waxaa rabaa function asigana functionkan waxaa rabaa inuu iisoo celsho numberka ugu weyn haddii aan rabo food waa dhihi karaa keliya balse functionkan waxaan ka rabaa inuu number dib igu soo celiyo waxaa leeyahay intii maxaa yeelay arraydan waa integer okay waxaa leeyahay intii waxaa rabaa inuu iisoo celsho number
return typekiisa waxaa rabaa inuu noqdo integer kadib waxaan leeyahay numberka ugu weyn kadib numberka ugu weyn okay prototype waa sameeyey asigana waxaan tegaynaa qaybta hoose kadib waxaan leeyahay kadib waxaa furayaa bodyga waxaan qabsanayaa follow I maxaa yeelay array waayo waxaan inaan hubinaa rabnaa I inta ay ka yar tahay xajmiga almar ayaan wada sharxaya igran I plus plus kadib waxaan leenahay waxaan isticmaalayaa condition oo if ah maxaa yeelay waxaan rabaa inaan hubiyo numberka balse waxaan rabaa hal number inaan qabsado kaasoo numberkii aan soo celinin ah waxaan leeyahay number wuxuu la mid yahay iska leeyahay by default waxaan ku shubaynaa ever kadib waxaan qabsanaynaa condition waxaan leeyahay if haddii number amba waxaad iska dhigi kartaa arraydan aaway bundooyin positionkeeda everad haddii uu ka weyn yahay number wax ku jiro waxaa rabaa number inuu la mid noqdo bundooyin positionkaas wixii ku jiro kadibna haddii intaan la helo waxaa rabaa inaad ii soo celiso number wax allaali iyo wixii ku jira okay for loopkan hadda sidaa ujeedin wuxuu noo qabanayaa hal line waa iska tiri karnaa calaamadahaas si koodkeena uu noogu noqdo mid yar waa sidaa ujeedin koodkeena wuxuu noqday kood qurux badan okay bal asigana aan tijaabino inuu shaqadii aan ka rabnay iyo in kale unuu qabanayo hal mar aniga ayaa si fudud u sharxi doono waxaa leeyahay numberka ugu weyn bal aan baroweyno sidaa ujeediin wuu soo kaciyey okay aan gasho 20 30 10 40 okay waa sax okay wuu shaqeeyey balse functionkan wuxuu soo celinayaa tiro maxaa yeelay functionkan wuxuu soo celinayaa tiro wuu soo celiyey balse anaga ma arkin sidaan u aragno waxaan u baahannahay inaan soo bandhigno isla markii amba variable kala qabsano waa samayn karnaa inaan dhaho intii number oo kale equal inta ku shubo kadibna aad soo bandhigo numberkaas numberka ugu weyn kadibna number saas waa samayn kartaa haddii aad rabtana isla markii si awdaa qaadi kartaa functionkana soo qaaday halaana ku bedelay waa isku meeshii balse qaabka aan fiirino okay hadda aan tijaabino aan galsho 20 40 30 10 halaan waa soo aragna waa sax numberka ugu weyn waa 40 sidaa ujeedin asagana wuxuu noo qabtay shaqadii aan ka rabnay bal aan nambarada bedelan aan computerka si fiican u tijaabin haddii uu shaqada aan ka rabnay oo si fiican u qabanayo iyo in kale aan ka bilaabo 50 100 kun kale 500 sidaa ujeedin numberka ugu weyn waa 1000 okay koodkeena waa sax okay hal mar aan sharxo si aad si fiican u fahantiin marka ugu horeyso waxaan qabsanaa hal variable kaasoo ah xajmiga arrayda inta ay qaado waxaan kaloo u sheegnay keyword kale aan kusoo kordhay kaasoo ah constant kaasoo ah variablekan waxaa loo ogolyaa keliya inuu ku jiro halkan qiimo 4 keliya isma bedeli karo macnaha haddii aan soo gaabiyo variablekan lama isticmaali karo hal mar ayaa lagu shubay bes salaas hal mar ayaa lagu shubay bes mar kale wax kale laguma shubi karo kadib waxaan qabsan array oo kaasoo ah bundooyin
kadibna waxaa dhaca cabirkeeda ha kana noqdo 4 xajmiga dhana xajmiga hadii la bedelo waa 4 hadii si kale loo dhigo waa 4 kadib waxaan qabsaday functionkan kaasoo ah soo geli balaan functionkaas meesha uu ku yeeleen kana iska jabiyo si aad si fiican ugu aragtaan kana furaa okay functionkan waxaan qabsanay for loop hore ayaa soo baranay ay waxaan dhahnay waxay la mid tahay ever okay timeka meeqa maraya okay 20 balse inaad fahantiin ka muhiimsan waqtiga I waxaa dhaca equal 0 I less than haddii ay ka yar tahay xajmiga I meeqa waa 0 ever iyo waxaa leeyahay 4 yaayar ever yaayar kadib waxaa intaa la imaanaya fadlan geli bunda okay I bundada saasaa ka rabe koowaad kadib waxaa la soo gelinayaa xog kadib xogtii la soo geliyaa waxaa lagu shubayaa arraydan bundooyin positionka everaad ay maxaa yeelay every marosa ayaa hal lagu darayaa kadib intaa la imaanaya waa la tijaabinayaa waxaa leeyahay hal iyo yaayar 4 hal yaayar kadib haddana hal leegii ayaa hal lagu darayaa halay maraysay 2 bundada labaad kadib wixii la soo geliyaa waxa lagu shubaa inta haddana intaa waa la tigaa waa la sii badanaa waxaan horaan usoo sharxay marar badan ayaa waxaa leeyahay meeqay noqotay 2 iyo yaayar 4 yaayar kadib waxaa leeyahay bundada saddexaad kadib bunda intaa lagu shubayaa okay halahaas horaan usoo sharxay bal aan tago kan marar badan ayaan hore usoo sharxay bal aan tago kan kale kadib waxaan dhahnay kadib waxaan wacnay functionkan kaasoo ah soo bandhig functionkan la dhahay soo bandhig waa kana intaa la tagaa asigana hore ayaan usoo sharxay asigana kan aan ka tago maxaa yeelay marar badan ayaan soo sharxay muhiimaddu waa kan oo numberka ugu weyn kaasaa anagu cusub conceptigaas waxaan qabsaday number computerka intuu imaanayaa wuxuu arkayaa number okay number wuxuu la mid yahay functionkan numberka ugu weyn la aadayaa okay numberka ugu weyn intuu yaalaa numberka ugu weyn waa kana leeyahay okay intaa la imaanaya number dhahay waxay la mid tahay ever follow ayaan qabsaday waxaa dhahay waxay la mid tahay 0 I meeqa waa ever iyo waxaa leeyahay iyo 4 every 4 yaayar kadib waxaa leeyahay okay condition ay kan waa la tijaabinaa bundooyin positionkeeda everaad tusaale wax kusoo shubnoo kale 10 iyo yaaweyn ever 10 iyo ever yaaweyn haddii ay sax noqoto waxaa la dhex gelayaa eftan dhexdeeda kadib number ever u ahaa waxaa lagu bedelayaa wixii inta ku jiray wuxuu leeyahay computerka 10 waa inta tusaale 10 kusoo shubnay intan ever ayaa 10 iyo ever yaaweyn 10 aaweyn okay 10 aaweyn number meeqa waa ever wuxuu la mid yahay bundooyinka positionkii hadda la maray ever u ahay 10 lagu bedelaa number meeqa noqonaa 10 okay kadib intaa la imaanaa ayaa hal lagu daraa ay meeqa noqonaysaa hal waxaa leeyahay hal iyo yaayar xajmiga meeqa waa 4 hal iyo 4 yaayar hal iyo 4 yaayar hal yaayar intaa la imaanaya bundooyin tusaale wax kusoo shubnoo kale iska dhig 20 oo kale kusoo shubnay 20 iyo yaaweyn leeyahay 10 haday number meeqa lagu shubo 10 20 iyo 10 yaaweyn waxaa weyn 20 okay inta la imaana number wuxuu la mid yahay leeyahay wuxuu inta ku jiro inta meeqa ku jiro 20 10 baa laga bedelaya waxa lagu shubaa 20 inta la imaana hadana hal lagu daraa ay meeqa noqonaysaa 2 iyo 4 yaaweyn kadib inta la imaanaya positionka labaad tusaale waxa ku shubnoo kale iska dhig 30 positionka labaad meeqa waa 30 iyo 20 yaaweyn waxaa 30 intaa la imaanaya number wuxuu la mid yahay leeyahay wixii inta ku jiro 30 numberkan waxaa lagu shubayaa 30 intaa la imaanaya hal lagu daraa 3 iyo yaaweyn leeyahay 4 3 iyo 4 marka yartaa leeyahay 4 yaayar 3 iyo 4 yaayar 3 yaayar intaa la imaanaya waxaa leeyahay bundooyin inta tusaale ay meeqa maraysaa 3 tusaale waxaa ku jiro kale iska dhee 40 waxaa ku jiro kale iska dhee 40 iyo yaaweyn 30 inta meeqa ku jiro 30
afartana weyn kadib waxaa leeyahay number wuxuu la mid yahay buundooyin waa meeqo afartan number meequu noqday afartan ayaa lagu daraya afar uu noqonayaa intaa la imaanaya afar iyo afar marka yarta afar kama yaro sidaa darteed for loopkan waa laga soo baxaya koodkeen wuxuu imaanaya inta kaasoo ah soo celi waxaan soo celshaa numberkan maxaa ku jiray afartan koodkeen wuu kasoo baxaya balaan iska xiro wuu soo noqonayaa wuxuu imaanayaa inta halahaas oo dhan shaqadan lasoo qabanaya wuxuu imaanayaa inta meeqa kasoo baxay afartana waxaa lagu shubayaa numberkan marka lagu shubo wuxuu leeyahay soo bandhig maxaa soo bandhigaa numberka ugu weyn halahaasaa lasoo bandhigaa caadi waxaa haddii aragto quruxsilaasasa ku qori kartaa kuwaan wax micnaa ma lahan numberka ugu weyn labadaas calaamadood kadib waxaa leeyahay waxdii aragto waxaa keeni kartaa elta shiftiya la'da kan ku xiga waa shiftiya qabe kan ku xiga laba mar jagsiye kadib labadaas calaamadood heli numberka ugu weyn number meeqa waa afartan numberka ugu weyn waa afartan kadibna sadar cusub okay videoga haddii aad ka heshay like saar channelkana subscribe saar si aad ula socotid video allaale iyo videoga aan soo gelino waxaa markasta aan u jeclahay inaan koodka sadar ugu sharxo inaad idinka aad si fiican u fahantiin waa samayn karaa inaan hal mar aan qoro kadibna aan soo duubo keliya aan isku soo dhigo balse waxaan sadar aan dul tegayo waa inaad idinka aad fahantiin kama fikira time balse waxaan ka fikirayaa quality inaad idinka aad hay fiican iga qaadatiin okay mahadsanid